shirkaas oo ay ka soo qayb galeen isimada boqorrada salaadiinta iyo maayirka degmada Ceergaabo iyo guurti kale iyo aqoon-yahano badanba wuxuu halka u socday muddo 3 casho ah sidaan hore u soo sheegay waxaana lagaga wada hadlayay guud ahaan colaadda ka jirtay degmada Ceelaf Weyn iyo waxyaabo la xidhiidha sidaa darteed waxa ka soo baxay bayaan ku saabsan guud ahaan xaaladaas iyada ah intaasi kadibna afhayeenka shirka Cali Siciid Jaamac ayaa halkaasi ka akhriyay go'aamadii shirkaasi ka soo baxay waxaan gudagelayaa akhrinta qodobadii shirkan ka soo baxay beesha Garxajis Bari beesha Garxajis Bari mana oga mana hayso cid duulaan ku ah qarannimada Soomaaliland dalalka deriska la iyo beesha caalamka toona labo xubnaha ciidanka qaranka uga tegay tabasho ay qabaan awgeed ee uu ka mid yahay Korneyl Caare waxay ka mid yihiin beesha waxayna ku jiraan talada madax dhaqameedka iyo gacantooda iyaga ayayna la go'an yihiin waxay beeshu tabashadeeda culus u maraysaa hab waafaqsan shuruucda dalka dastuurka aan ka baxsanayn xaydaabka qarannimada waa qodobka afraad weeye beesha Garxajis Bari waxay aad uga xun tahay dagaaladii soo noqnoqday ee deegaamada Ceelaf Weyn ayna ku fashilmeen eegas wasiir Maxamuud Xaashi iyo wasiir Maxamed Kaahin iyo gudidii uu xulay gudoomiye Saleebaan ay beesha Biciide 14 jeer weerar ku qaaday beesha Sacad Yoonis weerarkaas soo geystay khasaare nafeed iyo mid maalba weeraradaas ay xakameyn waayeen qabana waayeen kitaabka dhaarta wacadkii boorankii xidhayaashoodii iyo go'aamadii kale ee laga soo saaray arrintan ee ay fulinteeda dawladdu lahaydba sidoo kale waxay beeshu si gaara u xusaysaa dhacdadii ugu dambaysay ee lagu bartilmaameedsaday laguna laayay rag ka tirsan raggii halgamayaashii qarankan xureeyay iyo xubno ka tirsan ciidamada dawladda oo markaa la bisnaa shaqadii dawladana hayay ayna dilkaa fuliyeen xubno ka tirsan iyaguna ciidamada qaranka oo laakiin ka mid ahaa maleeshiya beeleed waxay beesha madaxweynaha ugu baaqaysaa ama ka sugaysaa inuu cid kasta oo xakame u noqon karta beeshaas iyo xal kasta oo xakame u noqon kara ama wax kasta oo lagu dhaarin karo waxay beeshani ka sugaysaa madaxweynaha oo keliya wabillahi tawfiiq